بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد وناكسن كل عام وانتم بخير داوديال كسو دوادا برنامج غارا oo aynu ku qaada dhigi doono siyaabihii kala duwanaa ee looga ciiday dhammaan magaalooyinka kala duwan ee Somaliland inta uu barnaamijkani socdo waxaynu ku soo qaadan doonaa magaalooyinka kala duwan ee Somaliland iyo qaabkii looga ciiday oo aynu si faahfaahsan u daawan doono dhawaada balse marka hore daawasho wacan بدلكين إلى هاي برواقة كدقو إلى هاي بارها نجيب إذا يمسوا شانو إذا تيس بعد كتير إلى هاي قلب برعد سمريو عيد مبارك ما نذكر كمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ضمان شعبي المسلمين تاو حن ليه هاي عيد مبارك خاصة شعبي Somaliland خاصة شعبي عاصمته waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum min salih al-a'mal waxaan iyagana salaam gooniyo u dirayaa dhammaan ciidanka kala duwan haday yihiin ciidamada qaranka ee jiidaha jooga haday yihiin ciidamada nabadgelyada ilaalinaya kuwa maxaabiista ilaalinaya kuwa madaxda ilaalinaya dhammaan iyagana salaam gooniyo baan u dirayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo bahda saxaafadda oo iyaguna habeen iyo maalin taagan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiinba aad baa u mahadsantahay salaam calaykum بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير نحن هلكن بالشدة وجههم بليانية مسلمين تا عيد الفطر عن لنا كل عام وأنتم بخير كل عيد ونكسن دمان عيد ماذا كل الدول إن بتقلي ذي العالية يو شغالة وينها غير Somaliland يجارها وزارة الجناح شغالة وزارة الجناح ملك ستيج شوجا محلية هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير لا يبي نقول تشين إنها برواقية خير سنة كان سنة كيس نقول قرسيو بش برواق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان ومالين وين دمان شعبي غير Somaliland بعض الصحافة يهور شوكتا ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dhamaantood waxaan halkan uga gudbinayaa maxaa hambalyo ciidul fidriga ku saabsan waxaan leeyahay ciid mubaarak maal caayidin kullu caam wa antum bikhair insha Allah ciideeda ilaahay caafimaad qab iyo nabadgelyo haynagu gaarsiiyo insha Allah taala waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oo inagu sugay in aynu ku ciidno oo aynu ramadaantiina ku soo dhameysano nabadgelyo kuna ciidna nabadgelyo wax ilaahay loogu mahadiyo weey aad iyo aad baan maxaa u bagaadinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك waxaan halkan marka ugu horeysa ka hambalyeynaya shacabka Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha ku-xigeenka golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo saddexda xusbi qaran waxa kale oo halkan ka hambalyeynaya dhammaan ciidamada qaranka uu leeyahay ciidanka qaranka ciidanka asluubta ciidanka booliiska ciidanka sirdoonka dhammaan ciidamada badda iyo ciidamada faraha badan ee qarankani leeyahay waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay ciid mubaarak inta ka bacdi waxa kale oo halkan ka hambalyeynaya dhammaan shacbiga gaarka aanu ka mas'uulka nahay ee caasimadda waxaan leeyahay shaqaalaha dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaankaba ciid mubaarak baan leeyahay ilaahay sanadkiisa bash iyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo waxa kale oo inta ku darayaa dhammaan shacab weynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay dhowrka cishe ciida dhammaan qof waliba ilmihiisa gacanta ku haysto qof waliba ilmihiisa ka warhayo qofka luma iyo qofka la waayo ee meelaha lagu ciyaaro laga helo ilmaha yar please halka rug boolisku ugu sokoysagee magaciisa saddexan qofka aan garanayn hal hayo waxa la siiyo hal la iscaawiyo hal la isu naxariisto waxaan leeyahay dulqaadkana hal la badiyo waayo shaydaanka la xidhxidhaa shaydaankii baa la soo daayaa marka salaada laga baxo qof walba isku day inaad qof badbaadiso tan nabadgelyadana gacanta lagu wada hayo qof walba qofka kale guri walba guriga kugu xiga gaari walba cidda saaran dhammaan kantaroolada waxaan leeyahay nabadgelyada aad loo adkeeyo ilaahay baa nabadgelyada noo adkeynaya shacbigu ha baraarugsanaado waxba inagu dhicmaayaan laakiin mar walba feejignaanta ka wacan iyadoo mar walba shacabkan yahay shacab aad iyo aad u feejigan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam alxamdulillaah ugu horeyn anigoo guud ahaan dadka reer Somaliland iyo dunida islaamka ciid mubaarak leh waxaan runtii aad iyo aad u salaamayaa ciid mubaarak leh ragga sida xalay u soo shaqeynayay haday sawir qaadayaal tahay haday tabiyayaal tahay haday farsamayaqaanna ka dambeeya tahayba oo bahda saxaafadda guud ahaantood oo ku hambalyeynaya shaqada adag ee ay hayaan runtii iyagoo dhalinyaro badan haddaan fariinteeda ama salaanteeda insha Allah bilaabo waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha ku-xigeenka guud ahaan saddexda gole qaran
iyo guud ahaan ciidamada qarankana uu leeyahay iyo dalkani shacabka reer Soomaaliland guud ahaan waxaan u ducaynayaa inta xanuunsanaysa cusbitaalada iyo guryahaba tiifta oo Ilaahay uu weydiinayo in Ilaahay caafimaad siiyo inteena caafimaad qabtana Allah inoo siyaadiyo dadka waxoogaga Ilaahay siiyay gacanta wax ku haya ama dhaqaalaha gacanta ku hayna waxaan ku baraarujin lahaa dad fara badan baa noloshoodu liidata dadka inay ka warhayaan insha Allah ugu dambeynna waxaan isu dardaarmaynaa inteena saxaafadda iyo guud ahaan dhammaanba إن شاء الله إنه صلاة الجمعة كلها لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما إحنا نلقى السلام يا أمة الإسلام كورن كرهان أمة جمهورية الصومال لنا حنا عيد مبارك كرهان حسي هذا السلام يا فاميلي يا قرابة يا أصحابته وحنا لا عيد إلهي وقارسيو باش براقو سوق إحنا نلقى السلام يا حول النذا تيفيق الصومالي ست حنا عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك دمان مدن Soomaaliland madaxweynaha qaranka gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran baarlamaanka golaha wasiirada dhamaan waxa leeyahay ciid mubaarak waxa kale halkaan ka salaamaya dhamaan familkayga cidii muqayga magacay garanaysa waxa kale si gaar ah salaamaya baxda saxaafadda gaar ahaan Sam News aad u mahad lagu dhameeyay rabadaantii maalmihi khayr qabay sida khayr qabtay lagu dhameeyay waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak marka labaad waxaan salaamayaa hooyadii iyo aabahay dhamaan asxaabteeda qaaliga salaamantiin ciid mubaarak عليكم marka u horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa madaxweyne ku xigeenka shaqaalaha dhammaan intaba salaam baliyaan u dirayaa soonkiisana Allah bashbash iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo idinkuna waa salaamantiin shaqaalaha salaamaya dhammaan waxaan salaamayaa muslimiinta oo idin waxaan xagga ka salaamayaa dhammaan saxaafadda Soomaaliland oo dhan waxaan halka ka salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo labada marwo dhammaan labada gole qaran dhammaan ciidamada qalabka sida oo idin dhammaan halka waxaan ka salaamayaa caruurtayda xaaskayga dhammaan muslimiinta oo idin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ما الحمد لله إلهي بمحض له بشير رمضان بركة سنين نبقب يوم مناقي نورد به وحن مناسبة عيد الفطر لما أمرها مسلم كعا ملكستي شوغان أمد الصومالية ملكستي شوغتو gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciideeda nabad qab iyo nolol wanaagsan Soomaaliland dhammaanteed marsan joognaba inaan ciidan nabad ku ciidno ciideedana ku gaadhno nabad qab iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu abaaraha dhulka ay ka taagan yihiin weli dalka ka taagan in ilaahay naga soo furo أنا قدر كشبابيات كيا ولسي تشيرنا إن إلهي يودي سيدنا صد التشيو وما تغير سمعنا نشوفه محمد لوال الله هاي عيد مبارك إلهي باري مهد إلهي باري للقارسيي بشي رمضان عندما يسني تدور عليه وإذا رمضان وبش رمضان صوصو من انتي هوري أيها دحدي كودنتي إنك إلهي هدو للقارسيي waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naga aqbalo salaadihii soonkii sakadii iyo maaragtay qiyaamkiiba inuu ilaahay naga aqbalo ayaan ka baryaynaa taa aamiin daa horta marka koobaad waxay bishaaro kale aan idiin hayaa qurbaha maanta guri aan 400 oo milyan euro weeyaan guri maanta aan laga salaada ciidda laga tukayn ma jirto adduunku maanta sidii hore maaha diinta islaamku waxay noqotay diinta ugu sida daadku u socday u socotaa ilaah baa iga markhaatiya way kasta intaasaa soo muslimta waa bishaaro wanaagsan waxa weeyaan maanta waxaynu joognaa maalin bani aadamku uu iscafiyo abaartu xagay ka timaday cudurku xaguu ka yimiday dambigeenna ku aan samaynay buu ka yimiday sallallahu alayhi wasallam marka ilaahay ma hadla subhanahu wa ta'ala إلهيغا روبكي نو كeenay إلهيغا سبحانه وتعالى ina gaarsiiyay Ramadaan inoo dhameystiray ayaa mahad leh waxaan halkan ka hambalyeeyaa dhammaan
عالم الإسلام مسلم كنول ملك استيجوجان بقى حنا إلهي كبر يا إن بشيء ده إلهي نوجر سين نبض يبروا غبا ولا ليا واصل الشيخ شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الله شيخ علي شوهر وحوي روب قوي راضي بريقنا وكير يهي هوسي قرادو قلبيتك abaartii wali way jirtaa daawadayaal idin ahaantiinba maalin wanaagsan ciid ulcaafiya ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal kullu aam wa antum bikhayr dhammaan ummadda islaamka waxaan leenahay ilaahay ciideeda idinku gaarsiiyo farxad iyo caafimaad ku waara ku soo dhawaada barnaamijka salaamaha ee Somali News TV oo aan idinka soo diyaarinay bartamaha magaalada Hargeysa ugu horeynba waxaan ku bilaabayaa dadweynaha salaamaha diraya ugu horeynba maxamed ugu horeynba ku soo dhawaado magacaaga iyo cidda aad salaamaysid bismillaah magacayga maxamed cabdiraxmaan cawaale waxaan salaamayaa markii ugu horeysa dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan si khaas u salaamayaa faamilkayga asxaabtayda waxaan salaamayaa hooyaday macaan Xawa Cali Axmed walaaladay dal iyo dibadba kala jooga adigoo cabdiqani aad ku salaamayaa cid gaar ah oo aad salaamaysaa ma jirtaa waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday macaan Xawa Cali Axmed walaaladay asxaabta dhammaan wada salaamayaa maxamed ciidan ka waran iyo ciidihii hore maxay ku kala duwan yihiin والله عيداً يعيد ورح كل دوينهن عيداً وعيد ما شاء الله عاد وناسن حنوسا إن سوين لو عيد مقالة هرقسا عاد يا ما شاء الله محادرين مساعدة حندرين يا فرحات سيفي عماد عيد ما فيليا عاد يا ما شاء الله ما شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله نهم بليان كلنا هاي داودها كله كسروا magacaaga iyo ku dhawaaniga magacaaga Sitaan Axmed Cays kamid ah suxufiyiinta dhigatay Dhigaal College halkan waxaan ka salaamayaa ummadda bahweynta Soomaaliyeed ahna Jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Somaliland Marwadiisa Aamin Waris anigoo intii garanaysa waxaan leeyahay kuntum bikhayr waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kala salaamayaa dhammaan family-ga hooyaday aabahay walaalahay eedooyinkay adeeraday dhammaan family-ga waa salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa telefishinka Somali News cabdiqaan si gaar ah ku salaamayaa waa mahadsantahay Axmed daawadaha xiga ayaanu ku soo dhaweynaynaa walaal adoo magacaaga iyo cidda aad salaamaysid ku bilaabaya walaal magacayga waa Xamse Axmed Cabdille waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kala salaamayaa madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo salaanta islaamka salaamaya dhamaantood ciidda ka waran maanta ciidda waa jawi farxad ciidihii hore iyo ciidan farqi u dhaxeeyo oo aad dareemaysa ma jiraan wallahi u dhaxeeyo anoo just waxa laga soo gudbay abaariyo waqti adag sixirkii bararkiina waa cirka doorta way kala duwan yihiin laakiin waa raxmaanku inoo nimciyey aad baad mahadsantahay daawadaha xiga ayaanu ku soo dhaweynaynaa walaal adoo magacaaga ku bilaabaya iyo cidda aad salaamaysid magacaygu waa Cabdifataax Al Cabdi marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda marka xigta asxaabtayda walaalahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdifataax Al Cabdi marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda marka xigta waxaan salaamayaa inta magacayga muuqayga garanaysa kulli caam wa antum bil khayr waxaan kala salaamayaa asxaabtayda walaaladay aabahay iyo shacabka reer Somaliland oo dhan iyo dadka muslimiinta oo dhan kulli caam wa antum bil khayr aad baad mahadsantahay magacaaga iyo cidda aad salaamaysid iyo ku soo barnaamijka salaamaha Somali News TV assalaamu calaykum wa salaamaya magacayga waxa la Jamaal Xarir Xamdulle waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxaan dhammaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan leeyahay bashbash barwaaqo ku ciida nabad iyo caafimaad baan idin rajaynayaa sanadkiina ilaahay inuu gaarsiiyo guul iyo barwaaqo waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adoo magacaaga ku bilaabaya iyo cidda aad salaamaysid ku soo dhawo barnaamijka salaamaha walaal magacaaga Cabdiraxmaan Xasan Yaasin aad salaamtay kullu dhammaan Somaliland calamka jooga muslim ciid mubaarak salaamaya kullu waan jecelahay walaalana waa
وولالنا كله فاميلي وانا ابو وانا كله مسلم فاميلي كاغا سيجار موسى فاميلي كاغا waxa meel fog jooga Eritrea ehelkayga ayaan salaamaya iyo inta magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadkiisa haynu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab iyo cibaado suban hay annaguna waxaan ku leenahay taqabbal Allahu minna wa salih al-a'mal wal magacaaga iyo cidda aad salaamaysid magaca maxamed xuseen aan wax ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo madaxweynaha dhammaan wax salaamay shacabka Soomaaliland oo dhan iyo wasiirada waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo hooyada iyo aabbayo salaamaya ciidan iyo ciidihii hore wax farqi u dhaxeeya ma jiraayo aad dareemaysid ciidan waa ciid aad u shan ciidii ugu wanaagsan ciidan marka la ciid la soo magacaaga iyo cidda aad salaamaysid iyo maanta jawiga farxadda ee ciida marka hore hambalyan ku leenahay ku soo dhawo barnaamijka magacaaga ku bilaabsan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdicasiis Taayir Ibrahim waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda muslimka meel walba ay joogto adduunka dacaladiisa waxaan si gaar ah u salaamayaa familygayga gaar ahaan hooyaday Cabdilaahi iyo guud ahaan familygayda waxaan meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland halka waxaan ka salaamayaa familygayga friendskayga classmates ciidan class-ka hayn macallimiintayda waxaan leeyahay ciideeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo waxaan alxamdulillah waxaan halkan ilaahay maxad uga celinayaa ilaahay nabad nagu ciidsiiyey dad baan nabadaaba maanta haysanay ku ciidayaan ilaahay sallallahu alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ciid wanaagsan ciid al-caafiya ilaahay bashbash barwaaqo inuu ku gaarsiiyo ciideeda alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay nabada iyo barwaaqadan ku sifay alxamdulillah baan leeyahay aad baad mahadsantahay magacaaga iyo cidda aad salaamaysid magacaygu waa Cabdicasiis Bedel Cabdi waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo madaxweyne ku-xigeenka Saylici waxaan salaamayaa dhammaan qoysaskayga oo dhan hooyaday Farax Nuur Maxamuud iyo waxaan salaamayaa dhammaan carruurteeda waxaan salaamayaa kale ciidankayga dadamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan iyo taliyahayga Sawaaxili dhammaan salaamaysan walaal magacaaga iyo cidda aad salaamaysid iyo farxadda cidda la qaybsanaysid ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Yuusuf Faarax waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta oo ay adduunka ka joogto ummadda Soomaaliyeed ayaan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliland waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddex gol qaran waxaan kaloo salaamayaa familygayda dhammaan waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda dhammaan meel kasta ay joogaan adduunka dacaladiisa iyo waa barnaamijka gaarka ah ee salaamaha maalinta ciida iyo hambaliyada ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabaya Sum News TV assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak baan leenahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaaji Cumar Xiriye ahna afayeenka iskaashatada nafaqay hiliblayaasha afayeenkooda anigoo ah waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa marka hore islaantayda Shukri Xaashi Axmed carruurtayda iyo waxa kale aan salaamayaa iskaashatada nafaqo gudoomiyaheeda Cabdirasaaq Xaashi Xuseen gudoomiye ku-xigeenka Qadre Xuseen xogayaha Maxamed Gaas Canab Ciise oo Faarax insha Allah waxaan kaloon salaamayaa nafaqo oo dhan iyo caalamka islaamka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo saddexda golob waan salaamaya insha Allah billaah duqa magaalada Hargeysa waan salaamaya insha Allah aad baad mahadsantahay annaguna ku salaamanaa ku soo dhawo barnaamijka salaamaha iyo hambaliyada maalinta ciida adoo magacaaga ku bilaabaya iyo cidda aad salaamaysid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب قوريسا وعيد وناكسن كل عام وأنتم بخير وحي إسلام ودنبان يا سلامة يا مد لبض وحنا هل كان وجد عيني يا أنت بكتا وأنا دعينا يا رختار كتير إلى هاي عافية لا أنت حرنا إلى هاي يعني دنوتو دي الله هراء يوجلين الله كجتو ولا جتة أيجنا سلام ما ندري هو دلت كده صانو أيجنا وادت كمان تاني نعيدين أنت هذا بديت وحن سلامة يا ومدة كنول Soomaaliland qaar ahaan Hargeysa
ee sida fiican u ciiday ee qalbiga xabxabka iyo salaamaha wanaagsan oo sidii talaagad xabxab ku jiro aad rabadaantii aynu cunaynay oo kale la soo baxday oo ku afurtay oo kale salaan la mid ah ayaan qalbigooda siinaya waxaan leeyahay way arkaysaan aniguna waan idin arkayaa laakiin waan idinka daarsoonee ciid wanaagsan weynana mudane kusoo dhawow adoo barnaamijka cidda aad salaamasid iyo magacaaga ku bilaabaya anoo magacayga waxa weeye maxamed cabdi cabdilaahi gaar ahaan waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan salaamayaa ummadda caalamka waxa magacayga iyo muuqaygaba garanaysa aad baan u salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maxamed axmed siiraanyo dhammaan saddexda ciidanka qaranka ciidanka asluubta iyo ciidamada oo dhanba waan salaamayaa inta kale waxaan salaamayaa caalamka intii aan wada ciidayna ciidul fitri aan isku nimid waan ciidna dhammaantiin waan salaamaya daawadaha xiga ayaan imika ku soo dhaweynaynaa magacaaga iyo cidda aad salaamaysid ayaad ku bilaabaysaa bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Muharis Maxamed waxaan tahay jaamacadda Alfa waxaan ahay siniyarada Development Area waxaan salaamayaa guddoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maxamed Maal waxaan marwada salaamayaa hooyaday Salaam Abdiraxmaan iyo Yuusuf Maxamed waxaan talo salaamayaa gaar ahaan xaafadda Jamaacaweyn oo aan u dhashay iyo ummadda reer Somaliland oo aan leeyahay sanadkiisa duciida bashbash iyo barwaaqo iyo Somaliland oo caalamka yeesha barwaaqo halkan salaan taayidada uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin daafaha dunida marka xigta waxaan salaamayaa Somali News oo maanta inoo horay waqtigiisii sidaan halkan uga qayb qaadanay maalinta farxadda ciida dhammaan waxaan salaamayaa waalidka aabbahay iyo hooyaday waxa kale salaamayaa walaalahay waxa kale salaamayaa dhammaan asxaabteedii ku nool gobolka saaxil adigoo dhammaan wada salaamaya waxay tahay maanta ciidii koonfur baa marka waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday aabbahay walaaladay adeeraday eedooyinkayga dhammaan asxaabta inta magacayga muuqayga taqaanta waxaan leeyahay dhammaan ciid mubaarak magacayga waxaa la yidhaahdaa Axmed Xuseen Shire Cali oday ku nool shacabka Hargeysa ka mid ah waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waana u ducaynayaa ilaahay inuu acmaashii aynu soo marnay inuu aqbal ka yeelo oo ilaahay naartii kaga xoreeyo waxaa kaloo aan ka faa'iidaysanayaa kelmaddayda tan inaanay waxaa la yidhi hawlka kama daalo wali waa hogadiyo haddaynu dee soo soonnay oo maanta ciidnay oo farxad ku ciidnay inaan dee cabsidii ilaahay iyo acmaashii ilaahay dartii camalkeennu soo qabannay halkiisiibuu sidii waajibinoo ku yahay in la sii kordhiyo inaan haddii ilaahay ku roon yahay maanta dee waxaa moodaa farxadda iyo nabadgelyada iyo nimcada halka ka muuqataana waa mid ilaahay loogu mahadnaqo taasna waxaa ka shaqeeyey ilaah bayna siiyey laakiin dawladda meesha ka jirta ayaa waxay leedahay mahad ballaaran iyadana waxaa intaas aan ku darayaa dadkii eheladayda ahayd gobolka Sanaag magaalada la yidhaahdo degmada Dhaxar dadka Xaaji Baraajku waa salaamihii iyo hambaliyadii kaliya ayaan salaamayaa salaan baraara inay sida shucuurkayga iyaguna igula ciidaan iyagana barkad iyo baraar aan u rajaynayaa iyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa waalidiintayda aabbahay Cabdi Ducaale Obsiye iyo hooyaday Maryam Maxamuud Caynab waxaan kaloo salaamayaa dhammaan intay la dhalatay iyo inta muuqayga asxaabtayda waxaasoo dhammaan halkan ka salaamayaa mahadsantahay walaal xaaji adoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha ee Somali News TV adoo magacaaga ku bilaabaya cidda aad salaamaysid iyo hambaliyada cidda la wadaagaysid baarakallahu fiik magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cismaan Abakar waxaan ka mid ahay saraakiisha ciidamada qaranka siiba hay'adda milasaarka qaranka waxaan salaamayaa saraakiishayda sarsare qaaliga ah Ismaaciil Nuux Ismaaciil Taani waxaan kaloo salaamayaa taliyaha ku-xigeenka booliiska waxaan salaamayaa saaxiibkay Maxamed Baaruud Jaamac oo isaguna korneyl ah oo bilayska madaxa hoggaanka saadka waxaan salaamayaa carruurtaydii oo dhan iyo xaaskayga qaaliga ahaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr annaguna waxaan ku leenahay ciid mubaarak hambalyo taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal kullu caam wa antum bikhayr daawadayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegaynay siyaabaha kala duwan ee looga ciiday dhammaan magaalooyinka kala duwan ee dalka intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo Boqor Axmed Cabdi iyo dhammaan bahdayga la qayb qaadatay ee Somali News oo idinkaga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kullu caam wa antum bikhayr